shirkan jaraa'id ee sida wada jirka ay u qabteen waalidiin caruur ay tiradoodu ku dhowdahay tobaneeyo oo kal hore safar ay ku tageen magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari uu maamulka Puntland caruurtan iyo mid kamid ah waalidiintooda uu xabsiga dhigay sheegayna maamulka Puntland in caruurta ay ahaayeen kuwa la soo afduubay ninka soo afduubayna uu ku sheegay mid kamid ah waalidiintooda oo lagu magacaabayay Ibraahin Cumar Liibaan Boorsheey ayaa waxa uu ku riday xagun gaaraya 12 sano xarig ah iyo $5,000 Mareykanka oo la waafajiyay dambiga afduubnimada ayaa caruurtan tobaneeyada oo dib ugu soo laabatay Muqdisho oo ay markii hore ka tageen waxa ay waalidiinta qabatay shirka jaraa'id waxba kama jiraan ku sheegeen in caruurtooda afduub lagu watay oo ay ayagu dirsadeen isla markaasina ay raali ka ahaayeen safarka ay ku tageen magaalada Boosaaso waxayna sheegeen in caruurtooda ay ku wajahnaayeen amaba ay u dirsadeen si ay uga soo shaqeeyaan Sacuudiga iyo Yemen oo inta badan xeebaha bari dalkeena loo maro loona isticmaalo safarada tahriibka ee qatarta badan ee ka imaata taasoo maamulka Puntland uu kala hore joojiyay waxay sidoo kale shirkooda jaraa'id kaga codsadeen dawladda ku meel gaarka ah in ay wax ka qabato xagunka cadaalad darrada ay ku sheegeen ee maamulka Puntland uu ku riday Ibraahin Cumar Liibaan Boorsheey oo la socday caruurta dib loogu soo celiyay Muqdisho siyaasha asagu uu xukunkaas ku dhacay kadib markii maamulka Puntland uu sheegay in uu soo afduubtay caruurtaasi halka waalidiinta maanta shirka jaraa'id qabatayna ay qirayaan in caruurta ay ayagu dhaleen isla markaasina aanay ahayn kuwa la afduubay rabitaankoodana ku baxay ayadoo sidoo kalena caruurtaasi qaarkood ay warbaahinta la hadashay anaga waxaan cadeynaynaa dawladda Puntland wiilka dhawaan ay xukuntay oo 12 sanadood ay ka xukuntay waa wiilkaas waa walaalkayga ani asiga waxaan nahay isku hooyaan nahay kadib ilmaha asiga oo waday oo tahriibka oo u waday anaga dhalnay waa walaalkayga gabartayda gabar kamid ah ayaan u dhiibtay waxaan u dhiibtay inuu ii tahriibiyo oo Sacuudiga ii baartaama ii geeyo baddaas ii mariyo Yemen ii dajiyo si asiga u geen karo kolba Sacuudi aan ugu talagalay ninkaas ilmahaas loo dhiibtay dawladda Puntland waxaan ogeysiinaynaa in ninkaas nin ilmahaas soo xaday ama soo dhacay inuu san aheenin ninkaas ilmahaas waalidiintood ayay u dhiibteen oo waliba asagoo ka xun oo dhaxayaan waalidiinta war anaga meesha shaqo la'aan ka jirto ilmihii waxbarasho la'aan ay maartama u badan yihiin bal nin walba hal gabar maartama noowad si banaanka noogu soo shaqeeyaan ilmaha dambe iyaga ka dambeeyaan si ayaga maartaayo waxbarashadooda ay u fududaato horta gabdhaha saasa loo waday gabdhahaas lama afduubanin waxaan dawladda federaalka Soomaaliyeed aan ka codsanayaa ninkaas muwaadinka oo lagu xukumay 12 sano oo xariga iyo ganaxa dhan $5,000 la sheegayo in lagu fududaaday si oo macna shuruud la'aan oo aan dadkii oo waalidiin oo cayaalka dhaleen ayagoon la tashanin oo la weydiinin oo la dhiin cayaalka ma idinkaas oo dirsateen waliba hataa qaar kamid ah ciidamada ayaa telefoon noo soo direen oo noo wareysteen dhaheen ninkan oo cayaalka idinka ma u soo dhiibateen mise waa idinka soo xaday markaas anagoo cadeynayno aan leenahay qof waliba telefoon loo diray la leeyahay cayaalka ma idinka u soo dirsateen oo cadeynayno leenahay cayaalka anaga u soo dhiibanay ninkaas tuug ma ahan boosaas anagoo guri ku jirnaa nala qabtay guriga ku jirteen yaa idin qabtay ciidanka dawladda oo Boosaaso xafiiska nulu geey ninkan dasnii keenay ninkan unaga buulaga nalaga keenay nin hooyadiis iyo aabihiis waa ku soo darsadeen marka waa laga diiday maxaa la dhahay ninkan ilmaan waa soo xadi ana xadi ma jirtay waalidiintiina idinku dareen amaasantahay waa kuwan qoysaska caruurtoodii laga soo masaafuriyay magaalada Boosaaso oo ayagu lagu sheegay in afduub lagu geeyay halkaasi halka waalidiinta ay maanta halkaan ku soo bandhigeen kadib kulan ay ku yeesheen in caruurtooda ay ahaayeen kuwa ay ayagu mas'uuliyadooda lahaayeen isla markaasina caruurtooda ay u dirsadeen si ay u gaaraan wadamada dariska ah Soomaaliya taasoo ay ku micneeyeen in ay qaban waayeen nolosha magaalada Muqdisho isla markaasina caruurtaasi si ay wax dheef ugu helaan ay u tahriibinayeen dhinaca iyo wadamada Yemen iyo Sacuudiga. Xasan Matoore TV-ga qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.